kusoo dhawaada course-keeni Adobe Illustrator. casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee loo sameeyaa ID card. sidee loo sameeyaa ID card? waxaan sameyn doonaa ID card-ka oo muuqda halkan design-kiisa qaabka loo sameeyay ayaan ku qaadan doonaa casharkeena maanta. markaad soo kicinayso file cusub sidaan hore ugu soo barateen waxaad tegaynaa file kadib waxaad doorataa new marka aad doorato halkaas waxaad ku qoraysaa file name-ka waxaan ka dhigaynaa ID card marka qorto waxa ku soo bixaysa halkan artboard-da aad u baahan tahay. marka aniga artboard-ka u baahnani waa labo sababtoo ah halkaas aad u jeedaan artboard-da hortiboodna waa naqaanaa. artboard waxaa loo yaqaanaa area lagu shaqeysanayo. marka laba artboard oo ah front iyo back. marka waxaan dooranaynaa artboard number waxaan ka dhigaynaa 2 space-ka badana waxaa la qaataa 15 cabirka ugu fiican oo 15 labada space u dhaxaysa labada artboard. cabirkeena marka width-ka waxaan ka dhignaa oo standard-ka loo yaqaano ID card marka sameynayso 2.13 halbeegeena saxna marka hore inchi aan ka dhigno. inchi marka ka dhigto marka cabirkeena uu isbedelay cabirka sida saxda ku soo celino 2.13. height-ka sidoo kale waxaan ka dhigaynaa cabirkiisa sigana 3.37. orientation-ka waxaan dooranaynaa ID card-ka siduu u samaysan yahay mid dhaadheer ah. haddii rabtana ballacna waa ka dhigi kartaa. blade-ka badana waxaan qaadanaynaa sida wanaagsan ama standard-ka ah 0.125 inch. blade-kana hore aan kusoo sharaxnay waa safe area-da ama wareega kore ee loogu talagalay micnaha inuusan qoraalkaada ku gudbin. kadib waxaan dhahaynaa okay. waxaana soo baxday area-dan oo aan rabno inaan ku sameyno shaqadeena aan ku qabano si aan u sameyno ID card noocan oo kale ah. shaqada ugu horeysa waxaan ka qabanaynaa waxaan bilaabaynaa marka hore inaan design-kii aan diyaarino shape-kan. koodi waxaan soo dooranaynaa rectangle tool kadib waxaan sameynaynaa waxaan fadhinaynaa background-iga damba. color-kiisa waxaa siinaysaa color blue. markaad siiso color-ka noocaas oo kale waxaa sameynaysaa si uusan u dhaqdhaqaaqin background-in waxaan dhahaynaa right click waxaan dhahaynaa object kadib waxaan dhahaynaa lock kadib selection lock. marka sidaa ujeedaan marka shape-keena aan halkan dhignay ma dhaqdhaqaaqi karo. waxaan rabnaa inaan sameyno marka shape-ka labaad oo ah qaybtan cad ee uu ku fadhiyo qoraalka. sidee loo sameeyaa? waxaad dooranaysaa ellipse tool. halkaan ku sawiranaynaa ellipse tool-keena ellipse tool color-ka white ka dhig sababtoo waa white. stroke-na waxaan dhahaynaa none sababtoo stroke looma baahno. kadib marka shape-ka si fiican u hagaaji geeskan ka dhamee. waa inuu ku fariistaa marka shape-kaada waa inuu la fariistaa ama cabirkiisa uu noqdaa waa inuu daboolaa artboard-ka aan rabno shape-kii buluug ahaa waa inuu qarsoomaa. markuu sidan uu yahay ee aad sameyso ellipse tool-kan waxaan rabnaa marka inaan jarno marka qeybahan banaanka ee ka baxsan artboard-keena inaan jarno. inta aan jarin ka hor waxaan rabnaa shape-ka hore ee aan sameynay ee rectangle-ka ah inaan looga ka qaadno si aan isula jarno labadooda. object kadib waxaa dhisa unlock all. kadib hadda wuu ku dooranmaa shape-kaas sidoo kale kanne waa shaqeynaa labadooda. kadib labadooda waxaa noo doortaa highlight saar si aan u jarno. kadib waxaad doortaa tool-ka loo yaqaano shape builder. shaqadiisu waxay tahay inuu jaro shape-ka rabto intaa u baahan tahay inaad ka jarto. kadib shape-keena markaan dulkeeno calaamadii waxay isu bedeshay plus waaye aalta taabo saa u jarto keli ku dhe marka halkaa rabto inaad jarto. sida la muuqato sida ujeedaa waxaa jarnay shape-kii banaanka yaalay. kadib waxaan sameynay background-iga ID card-keena sida hoos ka muuqato ID card-ka qaybta hoose waxaa waaye waa blue. sidee loo sameeyay?
shape kan white ka click si kadib waxaad soo yareysaa qaybtiisa ilaa inta camal qaybta hoose waa blue kadib saan ugu shaqeysano marka waa noo xirtaa log noo saar labadooda adoo shift haya click de object kadib log kadib selection log labadooda marka ma dhaqdhaqaaqi karaan marka waxaan bilaabnaa marka shaqadeeni ugu horreyn waxaan soo gelinaynaa sawirka meesha uu ku fadhiyo oo ellipse tool wareega kadib sawiraan soo dhex gelinay waa kan ellipse tool kadib noo door cabirkaas ka sax waa inuu sidaas u noqdaa afar gees sidaysan dhinac ugu badnaan kadib hore u sike badanaa wareegiisa ama stroke waxaa ka dhigaynaa white ama wait sawirkeena muxuu yahay wareegiisa waa redka aan doorano waxaan sameynay markaan ellipse tool waxaan rabnaa intaa yaris inaan gelino sawirkii oo ID card qofka iska lahaa kadib waxaad doortaa shape click leh kadib waxaad dhigaysaa draw inside markaa ku dhufato shape uu doormo waxaad dhigaysaa file kadib waxaad dhigaysaa place markaa dhahdo waxaa soo doortaa sawirkeena xaguu ku jira halkaan sample ugu jira kadib waa kan sawirka soo qaado sawirka markuu ku soo qaadmo sidaan u socdo click ku sii halkaa sawirka marka waxaa la ekaysiisaa shape-ka arabta inaad dhexdiisa geliso dhinacyada ka soo yaree kor ka soo yaree geeskan ilaa uu sawirka uu fit ku noqdo macnaha shape-ka qurux uu ka soo baxo hal gees ha ka jiidin sawirka haddaa gees ka jiito waxaa soo baxaysa sawirkaada inuu dhinac u bato ama uu qalqalaacmo marka sawirka qurxi ilaa iyo intuu la ekaan karo marka la ekaado banaankan imow double click dheh haddaan fiirino sawirkeena marka waa sawir aada u qurxoon meesha loogu talagelina ku fadhiyo hal mar sharaxaad inaan ku celiyo draw inside waxay qabataa sawirka aad rabto inaad geliso wareeg aad dhex geliso wuxuu kaa saacidayaa sawirkaada inuusan ka bixin wareegaas uu kasoo dhex muuqdo sawirka gudihiisa qaybta hoose asigoo aan dhaafin wareegan ku wareegsan ellipse toolkan ee sawirka ku wareegsan sidaas waxaa loo isticmaalaa draw inside micnaheedu waxay tahay hoos kasoo sawir oo sawirka kasoo muuqdo qaybta hoose ee shape-ka kadib waxaa ku xigo sawirkii markaa keeno waxaa ku xigo inaan qorno magacii iyo wixii dhan informationkii intaan highlight noo soo saar kadib noo soo qaad halkaan oogey intaan ujeedaan marka qoraalka ah waa qofka magaciisa iyo shaqadiisa maxamed cali xaaji waa sample iska soo qaadanay ninka shaqadiisa waxa waa graphic designer ID numberkiisa blood waa dhiiga nooc uu yahay blood type-ka iyo telefonkiisa iyo emailkiisa qaybtan hoosena waxaa loo yaqaanaa barcode micnaheedu waxay tahay waa ID-ga serial numberkiisa wax soo akhrinayo oo code numberka ama wixii sheegayo badanaa barcode-ka waxaa ku aragtaan product kastoo la soo saaro buwaagta oo kale markaa fiiriso waxyaabaha dhan oo la soo saaro kale markaa soo fiiriso ama supermarketada markaa ka adeeganayso kale sheyga markaa kasoo qaado iskafaalaha markaa rabto inaad aad qiimihiisa pricekiisa in lagu sheego waxaa la saaraa machine yar barcode-kaasa lagu aadina kadib pricekii lagu save gareey ayuu soo bandhigaa marka barcode-ka waa website barcode la yaraa jiro websitekaas barcode.com ayaad kasoo samaysanaysaa haddii aadan u baahnayna sample waa helaysaa barcode waa soo degsan kartaa barcode-ka kadib marka waxaan rabnaa inaan sameyno magacii halkaa inaan ku qorno magac wuxuu ahaa Mohamed Ali Haji Mohamed Ali Haji halkaan okay waxaa fiican marka magaca inuu bold noqdo bold hadaarto halkaas ka dooranaysaa rectangle iyo bold meesha ku jiraan marka aniga hadda waxaan rabaa farta inaan qaato kadib halkaan magacaan dooranaa
waxaan dooranaysaa iDropper tool hore usoo baranay. iDropper tool shaqadiisu waxay tahay markaa rabto si fudud sawir ama shape meel yaalo ama text meel yaalo automatically midka kale inuu u bedesho ayaa waxaa dooranaysaa marka ugu horeyso qoraalka aad rabto inaad wax ka bedesho fartaas click markaa siiso iDropper markaa ku dhufato kadib farta aad rabto inaad u bedesho ayaad click ku siinaysaa automatically marka fartii automatically ayay u qaadanaysaa. kadib waxaa magacii markaan sameyno ayar sidaan leh kadib waxaan qabanaynaa marka qofka shaqadiisa maxay ahayd graphic designer. maxamed cali shaqadiisa waxaa waaye waa graphic designer waa designer. kadib halkaa dooro halkaa geyso asiina marka magaca badan haddii bold uu noqdo shaqada qofkan waxaa fiican inuu noqdo oo far caadi ah. kadib halkaa noo door marka fartaa rabto inaad ogaato farta nooceeda waa soo barateen toolka oo text meesha ku jiro taqaanaan. farta markaa doorto waxaa kor kaaga soo baxayo farta nooceeda waxa uu yahay ama farta magaceeda. kadib waxaad tagtaa kadib waxaad tagtaa intaan ID-ga kaar inaan soo sameyno ID number capital ka dhig badanaa ID markii la sameynayo capital la qaataa. kadib noo soo qaata halkaan noo keen ID-ga markaa rabto halkaas geyso. waxaa rabaa marka inaan sameeyo saddexdan kale inaan soo qaato ID-ga click siinaysaa alt adoo hayo oo left clickna hayo ayaa saan usoo jiidaysaa cabir intaa rabtaa geysanaysaa. marka halkaas ku bisi control D midkii saddexda ku sameynaa control D aniga waxaan u baahnaa 4 xabso. ID kaarka waa midka ugu horeysa ID kaarka horta marka hore kal farta nooceeda aan saxo noocaas aan qaato. kadib marka kuwaan keli ku sii tag kadib magac ka bedel inaa cabirkan uu ku saxan yahay waxaana ku fududaanaysa marka magaca bis inaad bedesho bis. magaceena muxuu ahaa blood type uu leeyahay type ka maqan kanna muxuu ahaa next one muxuu ahaa phone midka saddexaad muxuu ahaa email. marka waxaad select saarataa ama aad soo doorataa saddexdan si aan ID-ga fartiisa isku mid aan ka dhigno. waxay la soo dhaweey see loo soo dhaweey see loo zoom out zoom in see loo sameeyaa hore oo soo barateen waa control plus waa ii soo dhaweey control minus waxaa gadaal u sig. markaad ii door selection tool direct selection tool ku dhufo kadib click day halkaan iDropper shaqadiisa ku qabso ID click si farta isku mid ay noqoto. marka sameyso marka inta title-ladii aad u sameyso kadib waxaan sameynaynaa qofka ID numberkiisa muxuu ahaa. ID numberka ka soo qaado inuu ahaa shirkadda waa shirkad weyn waa numberka wuxuu ahaa 1223 waxay ka siki textigeeda waxaa la rabaa inay isku mid aysan noqon sababtoo waa bold midka hore kan waxaad dooranaysaa text caadi kan noo soo qaad farteeda kadib kan noo soo door textigan saan kuwa kale u sameyno shift by alt adoo haya iyo left click soo jiid saad qoraalka kale u aadiso. markuu falaartaada ay noqoto laba dhinacii blood type waxa u baxday waa line korna waxa u baxay line kale oo micnaheedu tahay blood type uu la siman yahay line ahaan textigan oo ID card numberadiisana uu la siman yahay. halkaas kadib ku siidaa control D kuwa kale saa u sameyso control D all marka size-kooda isku mid. marka blood type-ka badanaa qofka dhiiggiisa intuu yahay waa company uu ogyahay. hadda AB plus waa ninkan kasoo qaad O plus waa ninkan dhiiggiisa. telephone number furo 6 furo 1 furo iska soo qaad furo 8 25 23 43 10 waa iska number caadi ah.
emailkeena emailka uu wato ninkan Mohamed Ali Haji Solomon magaciisa kale waxa ka soo qaadanaynaa Ali 2020 maadaama sanadka lagu jiro @gmail.com waa gmailka uu leeyahay Mr. Ali waxaan dhameynay hadda shaqada waxaan qabanay informationkii ku saabsan ID cardka waxaan noo dhiman barcode-ka sidoo hore ku sheegay halkaas ayaa ka helisaa noo soo qaad marka barcode-ka halkaan noo dhig waxaan noo dhiman frontiga back inta u gudbin frontiga waxaa ka dhiman loogada noo soo qabo marka adiga company aad u sameynayso loogadiisa adiga laga rabaa inaad samaysato aad meesha keento loogada marka halkaan noo dhig maadaama kor aadan geeri karin oo ay darbiga tagayso loogada halkaas noo dhig bidixdaas ama midig meesha rabto iska dhig adiga walba dooqiisa asigaa leh kadib waxaan dhameynay qaybtii frontiga waxaan rabnaa inaan ku darno qaybta baaga marka asigana intii dhibkii waan soo maraynaa waa mayo waa labada shape ee hoose sababtoo ah hoose tuso midka hore hoose waxay tahay waa kan oo la kala wareejiyay ama bilcagsigiis buluuga hoos la geeyay white-ka kor maray kan waa sidaas oo kale marka sidaan u sameeyno marka mar labaad drawing-kii dhibka badnaa marayno horta kuwaan log ka qaad maadaama ay xariyihiin object kadib unlock waxaa doorataa labadan click waxaa doortay midka buluuga ah iyo midka white-ka ah marka labadooda click ku siiso aad doorato kadib waxaad tagaysaa edit kadib copy hadda la edit ku celi copy paste in place aad filaysaa macnaheedu waxay tahay ii copyay pastina ku dheh meeshooda isla meesha ay joogaan marka hadda waa laba xabo midkeeni originalka ahaa iyo midkii hadda aan copy ka sameeyay qoraalkeena textiga muxuu u qarsoomay kii copy aan sameeyay past aan ku dhahnay ayaa soo dul maray marka qoraalkii waa hoos soo maray marka midka aan sameeyay waxaan rabnaa inaan jidna aan geyno artboard-ka labaad ee ah baaga shift adigoo haya falaara ka soo falaartay waxaan ka soconaysaa right-ka falaarta midig ilaa uu kula fariisto iska sax labadooda inuu ku fadhiyo okay marka saa uu fariisiso waxaan rabnaa qaybta buluuga inay hoos marto white kor marto right click waxaad tagaysaa transform kadib waxaad tagaysaa reflect waxaad doorataa 180 oo micnaheedu tahay xagal 180 wareeji oo micnaheedu tahay kii hoose kor u wareeji kadib haddaa fiiriso preview ku dhufo saad ujeedaan shape-keeni waa la soo wareejiyay oo micnaheedu qaybtii buluuga waxaa loo geediyay hoos qaybtii white-kana kor la mariyay kadib waxaad dhisaa okay kadib ID-gii baaga dib uu laabo qaybtan kore white waa kaliya buluug lama socdo marka buluugan say u qarinaa white-kan soo saarnaa shape-ka kore click dheh kadib qaybtan kore jid leekaysi darbiga weli wax baa ku jira dar ilaa guduudkaasgii oo blade-ka okay waxaan sameynay baagi waan hagaajinay kadib noo xirsaan ugu shaqaysan ayagana all noo door kadib object log selection log kadib baagi waxaa ku qoran idan marka baagi information-keeda wuu dheer yahay noo soo koobiyey leeda saaray sorry kadib halkaan noo dhig sida ujeedaan informationka ku qoran qaybta dambe waa badanaa company-ga ama shirkadda samaysanaysa ama jaamacadda ama iskuulka informationka ama addresskiisa badana lagu qoraa kasoo qaad hadda course-kan waxaa bixiyo akademiyada Samson informationkeeda ayaan halkan ku qornay this card is property of Samson Academy baalodkeeda ama meesha ay ku taalo waa Hodan Taleex Road Muqdisho Soomaaliya
telefoonada aad naga heli kartaan ama aad nagala soo xiriiri kartaan haddii aad ID cardkan aad meel ku aragtaan waa numberkan, waa emailkaas, waa websitekeena. Issue date-ka waxa waaye waqti la soo saaray 2020 5 January soo saarnay. Expire date-kana waxa waaye 21 ku dhaca. qaybta hoose instruction-ka hoose waxaa ku qoran if you found please forward to the above address or take it is the nearest police station. haddii aad ID cardkan wada ka hesho meena waxaad ku address gareysaa ama aad la xiriirtaa instruction kor ku qoran numberadaas oo kale naga soo waca si aad noogu keentaan ID cardkan wadada ka qaadeen ama waxaad u geysaa booliiska xerada booliiska ee kugu dhow ayaad u geynaysaa ID cardkan si ay anaga nala soo xiriiraan. kadib hoos waxaa ku qoran hoos waxaa saaran oo kaliya loogada iskuulka loogada waatan soo qabo halkan soo dhig hoose gasho waay loogadeena sababtoo ah waxay tahay colorka ay ka hooseysaa marka waxaa dhaysaa hore soo maray right click arrange kadib waxaa dhaysaa bring it to front kadib halkaas ay kasoo muuqato kadib waxaa dhaysaa bring to front halkaas ay kasoo muuqato marka sida la socotaan marka ama aad arkaysaan ID cardkii maanta aan ugu talagalnay inaan idiin faa'iideyno wax ka dhiman haba yaraatee ma jiraan waxaan sameynay frontiga iyo back marka waxaan filayaa insha Allah inaad course-kan aad ka faa'iideysateen insha Allah wax badan aad ka faa'iideyn doontaan marka casharkeena maanta intaas ayaan kusoo koobaynaa hada bilaa tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.